naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo isniina talaada ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha Janaayo sanadka 2026 caawa barnaamijka waxaan idinkugu hayaa qodobo cusub oo soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn waana barnaamijkeenii saddexaad oo aan idiin soo gudbinayno maanta isniina haddaba qodobada barnaamijkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah Imaaraadka oo isaguna heshiis istiraatiijiyadeed iyo mid military la saxiixday Hindiya oo ah dawlad haysata nuclear halka Sacuudiga mar hore uu isaguna heshiis la galay ka lamid ah Pakistan oo iyaduna haysata nuclear xaaladda khaliijka waxay isku bedeli doontaa meel quwadaha nuclearka ay isku garaacaan tafaasiil ku saabsan sheekada waan idin hayaa xog la soo saaray oo muujinaysa Trump inuu doonayo inuu la wareego wadanka Canada taasoo keentay ra'iisul wasaaraha Canada dhawaan inuu u cararo Shiinaha haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada iyana barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa Netanyahu oo caawa qiray inuu jiro khilaaf u dhaxeeya isaga iyo maamulka Washington iyo madaxweynaha Suuriya Al-Sharac oo telefoonka kula hadlay Trump goordhow qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo Geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Imara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road oo aan ka fogeyn safaaradda dawladda China ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Imara Luxury Homes Limited waxay ku diyaarinayaan laba dhismo oo dhaadheer oo caan ka ah magaalada Nairobi dadkuna ay u aayayaan mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba waa Parkland iyo halka lagu magacaabo amaba agagaarka waxage waa City Park Drive 6th Avenue dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkadaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi waxa hagayo hogaaminaya waa sayidka Soomaaliyeed waa sayidka Geeska Afrika ee yaan la moogaan guud ahaanba maamulka guud ee shirkadda la jeclaystay Imara Luxury Homes Limited kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii habeennimo haddaba waa habeennimo isniina talaada ay soo galayso barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Netanyahu ayaa sheegay inuu kala dhaxeeyo khilaaf ku saabsan arrimaha Gaza gaar ahaan golihii dhawaan uu soo magacaabay habeenkii Jimcada ahayd Trump Netanyahu wuxuu sheegay arrinka inay si weyn u diidan yihiin khilaaf weyn oo kala dhaxeeyo arrinka ku saabsan maamulka Washington waxay diidan yihiin Israa'iiliyiinta sida uu yiri sida guddidaasi loo sameeyay golaha iyo sida loogu soo daray Turkiga iyo Qatar oo Israa'iil ay aad markaa uga soo horjeedo haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray telefishinka Al Jazeera ayaa caawa qoraya wuxuu leeyahay Netanyahu wuxuu sheegay in khilaaf uu kala dhaxeeyo Washington ku saabsan golaha Gaza ee fulinta ee dhawaan markaa la sameeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa caawa waxa uu sheegay in khilaafka kala dhaxeeya Washington uu ku saabsan yahay golaha fulinta ee Gaza kaasoo markaa aqalka cad ee dalka Mareykanka habeennimadii Jimcaha ay ku dhawaaqeen iyadoo lagu guda jiro in markaa ay bilowdaan wada hadallada ama wareegga labaad ee ku saabsan heshiiska madaxweynaha Trump qorshihii uu Gaza u dejiyay haddaba arrintan ayaa waxay keentay in markaa Israa'iil ay ka boodo sida wax loo sameeyay haddaba dhanka kale telefishinka Al Jazeera ayaa faahfaahinaya
waxa uu netanyahu aadka uga cadhaysan yahay ciidamada caalamiga ee gaza imaan doona. waxa uu sheegay netanyahu in markaa isagoo la hadlayay xubno ka tirsan golaha baarlamanka israa'iil ee layidhahdo kaniisadka, waxa uu sheegay in askari ka socda turkiga iyo askari ka socda qatar aysan marnaba ogolaan doonin israa'iil inay soo caga dhigtaan gaza. dowrka turkiga iyo qatar ee dibudhiska gaza iyo arrimahan oo dhan waxa uu sheegay mustaqbalka gaza in aan markaa ay israa'iil ogoleen inay ku lug yeeshaan dowladahaas. waaye marka sheekadan marka waa sheeko israa'iil ay ku doonayso in turkiga iyo qatar meesha looga fogeeyo. waa tii xalay barnaamijkaygii aada ogeydeen inay ku dheganaayeen wiilkii sodoga uu ahaa trump oo ay lahaayeen wuu naga soo horjeedaa. marka sheekadaasu marka iyaduna way taagan tahay. israa'iil mar walba oo loo dhaqaaqo dhinaca nabadda caqabado cusub ayay la timaadaa. haddaba ma ka yeeli doonaa trump qorshihiisa inay fashiliyaan netanyahu iyo kooxdiisa, mise wuu ku adkaysan doonaa? taas waa su-aasha ilaa hadda la isweydiinayo. qodobka waa ka gudbaynaa. qodobka kale ee xiisaha leh caawa barnaamijka aan idinkugu hayo wuxuu yahay, dhowaan sidaad ogtihiin sacuudiga wuxuu heshiis istaraatiiji iyo mid militariba uu la saxiixday bakistan. bakistan waa dal haysta nuclear, waa dalka keliya ee islaama ee haysta hubka nuclearka. heshiiska aaduu u qoto dheeryahay. waxaa xataa dhici kartaa laleeyahay nooc ka mida nuclearkaas in la keeno sacuudiga, inkastoo maraykanka uu hor istaagi doono tallaabadaasuna israa'iil ay khatar ku noqon doonto. laakiin heshiis qoto dheer oo istaraatiiji iyo mid military ayay kala seexdeen, oo xataa haddii qolo ka mida qolada kale ay caqabad aragto ay markaa toos iyaduna ay ugu hiilin doonto. haddaba imaaraadka oo sacuudiga ay isku dhaceen oo meelo badan laga saaray ayaa isaguna wuxuu doontay isbahaysi. yaa kuugu dhoweysiri bakistaantan khaliijka soo aaday iyo cadow la tahay. waxay cadow la tahay hindiya oo iyaduna nuclear haysata. iyaguna arrinkaasay ku dhaqaaqeen maanta oo isniin ahayd. waxay heshiis istaraatiijiyadeed iyo mid militariba imaaraadku isaguna uu la gaaray hindiya. xaalku marka waad u jeedaan meeshuu marayo. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray telefishinka aljazeera caaw wuxuu leeyahay imaaraadka iyo hindiya ayaa waxa ay samaysteen shiraakad ama heshiis istaraatiiji difaac ah sida la yidhi. warbixinta way sii socotay. waxaa leeyahay imaaraadka iyo hindiya ayaa maantoo isniin ah waxay ka wada hadlayaan sidii iskaashigooda istaraatiijiga iyo midka difaaca ah labada wadan ay markaa u samayn lahaayeen kadib markii madaxweynaha imaaraadka sheekh maxamed bin zaayid al nahyan uu tegay caasimadda hindiya ee new delhi. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee imaaraadka ayaa waxaa la sheegay madaxweynaha imaaraadka iyo ra-iisul wasaaraha hindiya inay markaa ay isdhaafsadeen qorsho ku saabsan heshiiskooda oo markaa hadda isfaham marayo, kadibna la xoojin doono oo markaa meel wanaagsan la geyn doono. haddaba dhanka kale hindiya ayaa iyaduna war ka soo saartay. wasiirka arrimaha dibadda ee hindiya ayaa sheegay saxiixa heshiiskan imaaraadka iyo hindiya inuu markaa yahay mid markaa wax looga hortegi doono dhibaatooyinka ka jira ee gobolka sida uu yiri. waayahay dhibaatooyinka gobolka ka jira marka maxaa waaye imaaraad iyo sacuudi way isku dhegan yihiin. bakistan halkaas soo galay, turkiga halkaas soo galay, masar sacuudigay soo gashay, wixii oo dhan gobolka dhanaa leys haystaa. imaaraad marka halkaas wuu cararay. awal israa'iilna wuu haystay, haddana hindiya ayuu iyaduna u aaday. marka xaalku halkaasuu marayaa. dadka marka falanqaynaya sheekadan waxay leeyihiin waa sheeko gobolka khataro badan u keeni karta. hindiya iyo bakistaanna colaadoodu inta lasoo raro iyadana khaliijka iyo badda cas iyo dhulkan ayay iman doontaa. marka gobolkii wuxuu noqonayaa gobol mushkilado fara badan ay soo food saari doonaan. haddaba saamaynta waxay ku yeelan doontaa gobolka oo dhan aa la leeyahay. soomaaliya, jabuuti, eritrea, suudaan, dhulkaasoo dhan, yaman,
ayaa arrintan ay saamayn doontaa leeyahay. marka sheekadu ma wanaagsana. marka ilaahay dhibka iyo mushkiladda ha naga badbaadiyo. qodobka isaguna halkaas ayaanu kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka caawa aynu ku falanqaynaynaa wuxuu yahay sheeko yaab leh oo iyaduna lasoo helo laleeyahay Trump hadalladii bilowgii uu sheegayay markuu xulka qabsaday Canada inuu qaadanayo waa ka dhaba laleeyahay. Canada inuu xoog ku qaato rabaa. hadda waxaa laga celcelinayaa Greenland oo ibaartii ay leedahay Denmark haye marka sheeko la yaab la marka halka ka socota. waxaa kaloo la leeyahay aqalka cad mas'uuliyiin ka tirsan ayaa laga soo xigtay wadan haduusan isdifaaci karin dad u difaaca imaanaya waa la qaadanaa waa macna waa la isxoogaya adduunka indhaha la isu shitay. haddaba marka aan idin tuso isla telefishinka Al Jazeera ayaa caawa sheekadan keenay wuxuu leeyahay xogo la helay oo soo dusay ayaa sheegaya in Trump uu qorsheynayo inuu la wareego Canada. xogtan oo sir ahayd ayaa banaanka la soo dhigaa la leeyahay. haddaba warbixin ay qortay majalada la yiraahdo Daily Beast oo dhinaca wararka qaabilsan ee dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in Trump uu isha ku hayo Canada si markaa Canada uu markaa ula wareego sida la leeyahay oo uu markaa u qaato. marka sheekada waalida ah iyaduna way socotaa. xogtaasaa soo baxdaa la leeyahay Canada ninkan ma ka haraya la leeyahay inta muddaxileedkiisa joogo adduunyada wax badan oo ninkan raado ku yeelan doonaa hadduuba sii noolaado oo ilaahay u gaarsiiyo. marka ninkan meel walba ku bood waaye. marka ninkii iska celin lahaa isagaa laga rabaa. sheekada waxaa sii qaraariyey aqalka cad oo la leeyahay mas-uuliyiintiisa waxay yidhaahdeen wadan maxaa ka haysanaysa haddaadan difaaca karin ilaahuna booti waaye. marka sheekada waalida ah ayaa iyaduna soo korortay. qadar xayeysiisa kadib asxaabay waxaan u gudbi doonaa arrinta Suuriya iyo halka ay marayso. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka ka baran karto waxaa kamid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa. fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. هموغادي دوكسيغا مركز دار التقوى. شركة قبل هومس waxay mashaariic ka wadaa Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali. shirkadu guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex, 4 bedrooms duplex, 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedrooms, 2 bedrooms iyo 1 bedroom oo caadi ah. guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha. qaabka shirkadu guryaha u dhisayso waa qaab casri ah oo Turkish style ah. guri kastana waxa uu leeyahay masjid, madraso, swimming pool, gym, playground, meelaha lagu caweeyo, sitting areas, wiishashki, motor automatic ah, ceel biyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo CCTV camera iyo dhammaan facilities kale ee gurigu u baahan yahay. shirkadu haddaba waxay ugu baaqaysaa macaamiisha inay samaysay beecdhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah. wixii intaa dheer waxa aad la xiriirtaa maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali adigoo u sii maraya nambarka shaashada saaran. waa Qibla Homes. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waa Isniin Talaada ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka caawa ayaynu maraynaa. qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrinta Suuriya sida la ogtiin maalmihii la soo dhaafay ciidankeeda guulo waaweyn ayay gaareen. waxay qabsadeen meelo kala duwan, meelihii shidaalka waxay galabta gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen biyo xireenkii weynaa ee webiga Furaad ayay la wareegeen. meelo badan ayaa laga qabsaday. kooxdii Kurdiyiinta ee gooni-goosadka raadinaysay waa laga adkaaday. marka madaxtooyada Suuriya ayaa caawa war soo saartay. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ash-sharc madaxweynaha Suuriya waaye iyo Trump waxay ka wada hadleen isbedelada soo kordhay Suuriya iyo heshiiskii dhawaan Suuriya ay la gashay qasad nimanka la leeyahay ee Kurdiyiinta ah. haddaba madaxtooyada Suuriya ayaa sheegtay madaxweynaha dalkaas Ahmed ash-Sharc
in maanta oo isniina uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayna ka wada hadleen isbedelada iyo xaaladaha kasoo kordhay Suuriya dagaaladii ugu dambeeyay waxaana sidoo kale lagu sheegay warbixinta ay soo saartay madaxtooyada Suuriya in labada madaxweyne ay isla qaateen taageerada midnimada dhuleed iyo ka hortagga argagixisada dalka Suuriya midnimada dhulka ayaa maartay la isku afkartaa leeyahay inaan Suuriya dhulkeeda kala gooyin karo kooxihii gooshaadkana ay Suuriya nagta ka saartay marka warbixintaas marka waxaa soo saaray oo ka hadlay dhanka Suuriya wixii madaxweynayaashu ay ka wada hadleen kasto faahfaahin dhanka Trump aysan wali soo bixin sida la leeyahay marka xaaladda Suuriya iyadoo halkaas maraysa Turkiga ayaa gadaal ka taagan dawladda Suuriya oo isagu taageero ciidan iyo mid sirdoon intaba u fidiyay sidii loo jibin lahaa sidii aad ogeydeen barnaamijyadeedii hore waxaanu ku soo qaadanay in Israa'iil mas'uuliyiin ka tirsan iyaguna ay walaac ka muujiyeen qabsashada dawladda Suuriya goobaheedii shidaalka dhaqaale inagu heli doontaa way lacagaysan doontaa marka sidee uga hortagnaa iyaguna waxay ka fakarayaan sidii ay u hagal daacin lahaayeen guulaha ay gaarayso dawladda Suuriya yabba ka socda adduunkan barnaamijkayga caawa asxaabay waa naga inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka haddaad nagu cusub tahay subscribe ka iloobi YouTube ka Facebook na follow gareey nabadgelyo